sheekh Abdulnaafic su'aashan waxay tahay qof hadduu sina ka cabsanaya wuxuu leeyahay qof dhalinyaro kulli soo qoray wuxuu leeyahay haddii aan sina ka cabsanayo wuxuu leeyahay ma bannaan tahay anoo sina iska dhowraayo inaan seegaysto isla su'aal kale waraaq kalena waxaa ku qoran xukunka in qof sinaysto oo seegaysto maxay tahay shariicada islaamka maxaa tala siin lahayd qofkii caado ka tahay oo u barta alxamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in mawduuca ayaga horta way ka baxsanayd laakiin qofku inuu istimnaa sameeyo oo gacantiisa uu isticmaalo ama zinaha ka baqo ama yuusan ka baqin xaraam weey ahlu cilmiga qaar kamid ah waxay yiraahdeen lidarurati uu isticmaali karaa hadduu zina ka baqayo wixii la mid ah laakiin qowlkaasi waa qowl marjuux laba qodobba way ku jirtaa halkaas oo waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam qofku markuu shahwada ka baqo nabigu wuxuu tilmaamay soomka shahwada ka jabinahay guursadu iyo nabigu sallallahu alayhi wasallam ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj qofkii baa'a iyo wuxuu ku guursada haystaa ha guursado cilladii marka nabiga sallallahu alayhi wasallam guurka waxaan u jeedaa faa'iidooyinkiisa ayuu wax kamid ah sheegay wuxuu yiri fa innahu aghaddu lil-basar inuu gabadhaha ajnabiyaadka uu fiirsado oo dabadeedna zina ku dhaco ayuu ka badbaadayaa basarkiisu laabahaya waxsanu lil farji farjiga saa u dhowritaan badan qofkana wadina muxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi bisawm fa innahu lahu wija marka qofku shahwada waxa ka jabinaya ha soomo cibaad laba faa'iido ugu sugan inuu ajr helo iyo in shahwada ay ka jabto labadaba ugu suganta hada awalan tan labaad kuwa caafimaadkana waxay yiraahdeen qofku hadduu istimnaa sameeyo si degdeg uga shalaahaya arintaas maxay yeelay xilliga uu ugu baahi badan yahay qofku ayuu ka shalaahaya qofka istimnaaga sameeyay yiraahdeen gacantiisa isticmaala xilliga uu ugu baahi badan yahay shahwadiisa iyo qasabada uu maalin kasta uu dhibaato ku sameeynayo ayuu waayahay illa waxa weeye waxani waa jir bil aadan weeye arrintaana uu ku jilxaya uu ku baaba'aya asagoo dhalinyaraha waxa laga yaabaa qofku inuu talfaa xagga nasiixada nabiga banisiya sallallahu alayhi wasallam annaguna waxa leenahay ilaahayna ka cabso naftaadana u tur hadhow oo dhibaato uu kugu keenin caafimaadkaaga iyo dadnimadaada iyo hadhow nasligaaga iyo dhibaato ku keenin warka nabigana qaada sallallahu alayhi wasallam insha Allah ta'ala wa ka gudbaysa insha Allah billahi ta'ala